wadooyinka iyo dhammaan magaalooyinka ayaa ah kuwa bannaan. sidoo kale garoomada kubadda cagta ah oo ahaa kuwa ugu mashquulka badan ee waddanka China ayaa noqday kuwa bannaan. sidoo kale waddo walba waxaad ku arkaysaa gaadiidka gurmadka degdega ah ama waxa loo yaqaano ambalaasta. dhammaan dadka oo dhan waxa ay ku jiraan guryahooda. wadooyinka ayaana noqday kuwa haawanaya, sababtuna waa fayruska dilaaga ah ee corona kaasoo ku faafay magaalada Wuhan. tirada u geeriyootana waxa uu gaarayaa in ka badan 700 oo ruux, iska badaayay kumanaanka kun ee ku dhibaataysan isbitaalada dhowr wadamood. sidoo kale waxaa soo ifbaxday inuu ku siyaaday meelo ka baxsan Shiinaha, waxaana kor u sii dhaafayaa wadamada uu gaaray in ka badan 20 wadan oo ka mid ah Thailand oo 14 xaaladood ah, Singapore oo 13 xaaladood ah, Japan oo 12 xaaladood ah, Korea oo 12 xaaladood ah, America oo 4 xaaladood ah, Malaysia oo 8 xaaladood ah, France oo 4 xaaladood ah, Vietnam oo 4 xaaladood ah, iyo Nepal oo 1 xaaladood ah. sidoo kale waxaa la sheegay inuu gaaray dalka India, waxaana ka bilaabatay ka hortagga sida magaalooyinka qaar Calcutta, Jaipur, Delhi iyo Bihar. haddaba ugu horeen muxuu yahay coronavirus? maxay tahay raadadkiisu? halkuu ka yimaaday? muxuuna Shiinaha ugu faafayaa ilaa haatan? ma ogtahay daawade in Shiinuhu ay cunaan xayawaanada qaar sida dooliga, masaska, fiidmeerta iyo kibiliga? waa sababta ugu faafayo Shiinaha. baaritaano ay sameeyeen dhakhaatiir Amerikaan ayay ku sheegeen in fayruskan uu ka yimaado cunida xayawaanada sida dooliga, masaska, yaanyuurta iyo kibiliga. faafida fayruskan waxa uu magaalada Wuhan ka bilowday 20 December 2019, wuxuuna ku faafay Shiinaha oo dhan ilaa uu gaaray magaalooyinka Macau, Hong Kong iyo magaalooyinka ku hareeraysan. fayruskan waxa uu qofka ugu dhacayaa isagoo aan dareemin muddo 14 maalin ah, kadib waxa uu bilaabayaa inuu qofku ka soo kor muuqdo. fasiraado badan oo ay takhaatiirtu sameeyeen ayay ku ogaadeen in 90% uu keeno cunida dooliga, halka dooligana uu yahay cunooyinka asaasiga ee magaalada Wuhan, waana sababta ugu faafayo ilaa haatan. astaamaha lagu garto fayruskan: 1. cunno xanuun ama dhuunta uu ku xanuunta. 2. qandho fara badan. 3. neeftu kugu adkaata. 4. madax xanuun. 5. qunfac iyo sanka oo ku cuncuna ama cuncunida sanka oo fara badata. fayruskan qofka si degdeg ah ayuu ugu faafin karaa qofka kale, sidaa daraadeed waxa uu u baahan yahay digtooni fara badan. sidoo kale xukuumadda China waxay qaraar ku soo saartay inay dhisayso isbitaal lagu daaweynayo dadka uu haleelay, laguna dhisayo muddo 10 maalin. dhismaha isbitaalkuna waxaa la bilaabay 23 January 2020, waxaana la dhameeyay lana diyaariyay 3 February 2020. isbitaalku waxaa ku dhammaystiran dhakhaatiirtii daaweyn lahayd lana tacaali lahayd fayruskan dadkii uu haleelay, halka masaaxo ahaan uu gaarayo isbitaalku 520 mitir oo isku weeran. dhakhaatiirtuna waxa ay sameynayaan baaritaano badan si ay u helaan daawo ay ku ciribtiraan fayruskan dilaaga ah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan ha ka iloobin inaad like dhahdo, kadibna aad ku share garayso walaalahaaga si ay ayagana uga faa'iidaystaan. mahadsanid.